xarumahan saddexda gaarayo waxaa lagu qidmeynayaa bulshada ku dhaqan caasimadda waxayna kaliyiin xarunta ilaalada deegaanka daddegista iyo xarunta xalinta khilaafaadka dhulka oo in muddo ah maamulka gobolka banaadir uu ku waday dhismo dayactir ballaaran ah. munaasabadda uu xarigga ugu jiray maayarka magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish waxaa kasoo qaybgalay bulshada ku dhaqan degmada shangaani ee gobolka banaadir, taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka iyo agaasimayaal sare oo ka socday maamulka gobolka banaadir. hadal kooban uu jeediyey taliyaha ilaalada deegaanka ee xamar gaashaanle sare carabow waxa uu sheegay in bartan ay noqonayso bar loogu qidmeeyo dadweynaha ku dhaqan gobolka banaadir. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa haddaan nahay ciidanka ilaalinta deegaanka dowladda hoose ee xamar, yacni xeradan oo burbursan ayaa anaga nagula wareejiyey. waxaana mahaddaas iskale duqeyna magaalada muqdisho oo xerada maantay sharafta ay leedahay asaga dartiis ku ahaatay. ilaahay ha u jiseeyo, waan uga mahad celinaynaa, waana ku faraxsannahay maxaa yeelay maantay xeradan 84 la dhisay, dowladda kacaanka noo dhistay, kadib dhowr jeer la dayactiro oo waxba tarin. dayactirkii ugu fiicnayna hadda ayaa laga qabtay. marka aad iyo aadaan duqeyna ugu mahad celinaynaa, annagana kuwii barakay yacni wax tara oo yacni kaashada allah naga dhigo. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa xarig jarka kadib waxa uu mid u kormeeray dhammaan xafiisyada isagoo hubinaya badqabka xarumahan. gudoomiye cumar ayaa bulshada caasimadda u sheegay in maalinta beri ah loogu adeegi doono xaruntan uu xarigga ka jaray. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. agaasimayaasha guud ee maantay munaasabadda xarig jarka nagala soo qayb galay, taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka xamar, agaasimaha xiriirka degmooyinka iyo agaasima waaxeedyada, guddoomiyaasha degmooyinka, guddoomiyaha dhallinyarada iyo mas-uuliyiinta kale oo aanan halkan ku soo koobi karin, bulshada reer shangaani iyo ciidanka ilaalinta deegaanka xamar iyo saraakiishooda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullah. salaan kadib waxaa nasiib wanaag noo ah alxamdulilaah maantay inay noo soo dhammaatay dabowdhiskii xarunta ciidanka ilaalinta deegaanka ee anagaraaf ama xarunta daddhigista iyo qaybta kale ee waaxda xallinta khilaafaadka dhulalka. maanta waxaan xarig jarnay marka saddexdaas qaybood oo qayb walbaba dayactir wanaagsan lagu sameeyey. runtii waa mid ka mid ah guulaha isdaba joogga ah ee maamulka gobolka banaadir uu gaarayo, inaan annagu gacmaheenna iyo dhaqaalaheenna ku dhisan karno yacni xarumaheenna gaar ahaan meelaha burburay. meeshaan muddo aan fogeyn ka hor waxay ahayd meel aan la fiiri karin, waana meel runtii loogu adeego bulshada, weliba maamulka gobolka banaadir uu dakhli ka soo galo. sidaa darteed waxaan xoogga saarnay in meel u qalanta bulshadeenna loo adeegayo loo dhiso. dhismihii waa dhammaystirmay. berrito wax walba waxaa u furan inay meeshii ay ku shaqayn jirtay ay dib u soo degto, maadaama muddadii dayactirku socday bannaanka laga tegey. in hawshoodii ay dib u bilaabato, meelihii sida ku-meelgaarka loo deganaana laga soo guuro laga bilaabo berrito haddii alle eego. waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo halkan madaxda maamulka gobolka banaadir, gaar ahaan ku-xigeenadayda iyo mas-uuliyiinta kale ee sida hagar la'aanta ah ii garab istaagay muddadii hawshaan ay socotay. runtii meelo badan ayaa laga dhisay meesha halkan, waxyaabo badan ayaa la soo kordhiyey oo aan hore u jirin. wax hadda dhimanna waa wax aad u yar. meeshaan waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid ka mid ah xarumaheenna ugu bilicda iyo quruxda badan siday awalba ahaan jirtay, oo aan xafladaheenna ku qabsan doono haddii alla idmo munaasabadaha gaarka ah.
mas-uuliyadda halkan ka shaqaysa iyo waaxda nadaafadda gobolka banaadir iyo gaar ahaan qolada nadaafaddae xarumahan qaabishan waxaa laga rabaa inay nadaafadda halkan iyo xarumahan bilicdooda ay dhowraan inay dhowraan waaxda bilicda iyo nadaafaddu inay qabsato shaqadeeda waxa ka dhiman oo xagga bilicda ah dhismo waa dhammaadeen inay shaqadooda ka qabsadaan maalmo kooban kadibna yacnii meeshii la dhisay oo bilicdeeda iyo dhirtooda ay intii ka duwan tahay inaan aragnaan rajaynayna ma raba inaan hadalka sii dheereeyo maxaa yeelay waxaa qorraxda taagan hooyooyinkeennii gabdhaheennii iyo mas-uuliyiin badan oo hawl badan noo qaban lahaa balse munaasabaddan darteed howlahoodii u soo daayay waxaan doonayaa howlaha hay-ad walba oo gobolka banaadir ay qabato in si hufan oo wanaagsan oo sharaf leh loo qabto maxaa yeelay waad ku mushaar qaadataa waana dalkaagii haddii aadan dalkaaga u hagaarbaxayn oo aadan mushaarkaaga u hagaarbaxayn anugu ma garanayo waxa dambe oo aad u hagaarbixi doonto sidaa darteed isla xisaabtan ayaa jira wuuna jiri doonaa isagoo intii ka sii adag waaxyaha dhaliilaha leh inay dhaliilaha iska tiraan kuwa aan dhaliilaha lahaynna waa uga mahad celinayaa inay sii labalaabaan shaqadooda intaas ayaan ayagana dhihi lahaa maantay si rasmiya ayay u furan tahay xaruntan isugu jirta saddexda xarumood ee ah xaruntii ciidanka ilaalinta xaruntii anagaraafeeda dhigista ayaa xarunta waaxda ama guddiga xallinta khilaafaadka dhulalka waa inoo furan tahay wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu kusoo dhawaada som TV Soomaali fadlan taageeradiina waxay noo tahay dhiirigelin subscribe saar kanaalka share garee like saar videoga mahadsanid